iyadoo maalintii shalay ay ciidamada bilayska gobolka Togdheer xabsiga u taxaabeen Suldaan Maxamed Muuse Cune ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani cuqaashiga waxgaradka gobolka Togdheer waxa ay cambaarayeen xariga loo geystay Suldaan Maxamed Muuse Cune Faarax Dayr waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi xukuumaddu ku xidhay gobolka Togdheer isagoo waxa la wuxuu geystay aanay jirin laakiinse تعبير كيس يفكر كيس وقوى لقوها يستعمل لقو حري وحن لا نهاي وحن مركو ورا عبارين إن حرقة هدان نهاي مسؤولين تحسب جوضني أنا قدوميها قبل كتقدر حسب جوضني هدان نهاي أنا وافق يقول يافق قدي يافق تاجريش هذا آد بنو عبارين وحن لا نهاي حرقة اسمها مين وجيو سلطانك وجيو وحويا سلطانك وسلطان ده يربوها يسوح القامي كبعينته iyo horumarinta dimuqraadiyadda iyo ka hortagida waxyaabaha xun ama yeeraha xun ee ka soo yeera xukuumadda ka soo yeera dadka isu xilqaama ee ka hadlaya xorriyatul qowlka aadka uga hadlayo Suldaan ka mid yahay waxaan leeyahay dil mugeysan dhigna faraam mugelin laakiin xorriyatul qowlka hadalkiisa oo kaliya wuxuu yiri ayuunba lagu haystaa kuwa haysta ee soo xiray ee yiri hal soo xiray xadgiisa ka dambeeyana waxaan u maleynayaa wax weeyaan qaar ummadan meel u wadaaya ama meel u gaarsiin karaya maaha waxa weeyaan ummadan inay iska hor keenaan oo ay maalinba sidii wixii ay ummadan ka gilgilatay ee ay ka tagtay ee dhabar jabin ku sameyn jirtay ee guriga loogu soo daadin jiray ayuunba maanta muuqda waxaan leeyahay warbay faqash may tagine way joogtaa wali waayo waxa weeyaan wixii aynu ka soo dagaalanay ummadan ay ka soo dagaalantay ayaa habeen walba dhacaya ceergaabay ka dhaceen booramay ka dhaceen burcay ka dhaceen waad arkaysaa waxaas waxa weeyaan waa waxyaabihii ummadda ay ka soo galgalatay dimuqraadiyaddana waxa weeyaan inaga oo xora ayaynu qaadanay oo wadanku qaatay xukuumaddu maanta hadii ay waqtigeedu u dhamaaday ay isleedahay galgalashada magaranaysaa rafadkii ugu dambeeyay weeyaan baan u maleynayaa kaniya waxaan leeyahay wartaas mid ina dhaqaysa maaha ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogtaan waxaan leeyahay war ha laga digtoonaado nabadgelyo xumadii xukuumadda ayaa bilowday waayo habeen walba waxaad maqlaysaa yeedha noocaas iyo dadka birmigeeyada noocaas oo kale la xirxirayo waxa lagu xiray ama waxay sameeyeen aan jirin waxaan halkay ku soo gabagabeynaya suldaankaasu waxa weeyaan nin dambi geystay ma nin dambi galay maaha wuxuu ku hadlayna xorriyatul qowlka hadalka maxaad u hadashay ayaa lagu xiray waxaan leeyahay xorriyadiisa loo soo celiyo kuwa kale ee baadilka ku xirxiran ee daafaha ee Soomaaliland ku xirana waxaan leeyahay iyagana ha loo soo celiyo xorriyadoodii ha loo soo celiyo ummadda reer Soomaaliland waxaan kula dardaarmayaan leeyahay meel kasta ay joogaanba war nabadgelyadiini waa la farafareynaya ee ilaashada oo ka digtoonaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taasoo gobolka iyo degmada Burcabe aad looga cadhooday Soomaaliland oo dhan suldaankaas oo ah suldaanka dimuqraadiyadda iyo xorriyatul qowlka ilaalin jiray ee u doodi jiray waxaan u tagnay taliya qaybta bilayska wixii Hargeysa la iga soo amray Hargeysa cid kale oo Hargeysa waa magaalada cid gaar oo la saaray ilaa hadda ma jirto marina waran caday soo amray buu leeyahay taliya qaybtu arintaas waxaan u aragnaa un caburin dimuqraadiyadda la caburinayo xorriyatul qowlka la caburinayo waxaynu maqlayno aynu ogeyn maalin dhaweyd in xildhibaano waliba xisbi xaakimka ka tirsan oo xukuumadda ka tirsan in madaxtooyada ciidamada inta loo dalbaday lagu hordilay waa amaradaha xukun xumida iyo maamul xumida oo ilaahay hadda xabsiga ku jira anigoo ah Suldaan Maxamed Aadan Cabdilaahi Suldaan Maxaafid Durdur oo ku hadlay afka salaadiinta gobolka Togdheer waxaan leeyahay xarigaas waanu cambaareynaa waanu ka soo horjeednaa waanu ka xunnahay cid kastoo ka dambeysayna arintaa waxaan leenahay war arintaa faraak laabta suldaankana xorriyadiisa loo soo celiyo jujuub iyo xoog hadii la yiraahdo way ku joogaysaa waxaan leeyahay xukuumadda taa waxaan leeyahay mulkiyada naga cashuurtaan sanadkii wax la yiraahdo cashuur sanadeed baa qaataan haddii aan idiraahdo mulkiyadii 14 la ii gooyay waa sharci oo bixin maayo cashuurtii 2015 ama 16 miyaa naga yeelaysaa naga ismacsan ma yeeyo jawaabtu kid waqtigeedii dhamaaday weeye haddii waqtiga xukuumaddu dhamaado oo aan dabeedna idhaaho 15 kan cashuurteedu ku haysanaya bay ka dhigantay arintaas weeye qofkii yiraahdo war xalaasho oo qaabkan aynu socono iyo jaadan aynu ku soconnaa war waa khaladka laga baydo qofkii yiraahdaba haddii saqada dhexe guriga loogu soo dhaco waxa weeye waa khalad waayo way kala haboon tahay qofka marka muwaadinka haddii dambi loo sheeganayo in saman loo qoro in loo yeero xitaa iska daa nin suldaano mas'uule qofka kale ee bini'aadamka ah reer Soomaaliland ama qof dadka kale ah
waxa waajib ka ah in loo yeero sida dadka bini'aadamka loo qabto وبرواقادن محمد شبكة عالمي قود وين نيوز مقالة برعو